soo dhawow waxaan wareysanaynaa anagoo asaba TV Saalax Jaamac oo loo magac daro Saalaxis Saalax waad ku soo dhawaataa Sama TV waxaad ka mid ahayd ergeyda ka qayb gashay shirkii ka furmay maanta gobolka Jubbaland looguna yegleenay in maamul lagu sameeyo bal waxaan nooga warataa shirkaas uu dhacay wuxuu ka furmay magaalada Kismaayo ka furmay waxaana ka soo qayb galay ergooyin gaarahayay ilaa 800 gaarahayay baa ka qayb galay dadka ayaga waxay ahaayeen delegate-ka markii hore delegate-ka hadhow ka qayb gali doonta maamul samaynta ayay ahaayeen furitaanka shirkuna wuxuu ahaa fariin buu ahaa loo dirahayay cid allaaliya ciddii kasoo horjeeda inay Jubbaland maamul yeelato xaqiiqadiina wuxuu ahaa guul weyn ayuu u ahaa inuu furmo Jubbaland state-keedu inuu cagaha ku istaago sidaa darteed ciddii kasoo horjeeda inuu maamul ka dhismo meesha wuxuu ku ahaa dharbaaxuu ku ahaa ciddii jeclayd oo sugaysay sida jaaliyadaha dibadda joogo Minnesota ay ka mid tahay North America oo dhan iyo Europe oo sugahayay shirkan uu furmana aad iyo aad bay yididiilo iyo farxad ay u gelisay waxaase jiray intaan shirku furmin ka hor pressure ka imaanahayay international community-ga qaar ka mid ah oo weliba ay ugu horreysay dowladda Maraykanka iyo rabay xoogaa in shirka dib loo dhigo taasna rumaysnaa in khalad weyn u dhacay markii 23 shirka dib loo dhigay kabacdina lagu qanciyey laba waxyaalood oo shirka inaan dib loo dhigi karin sababto waxaa weeye 1000 qof baa markaas joogay jaamacaddii ummadda jaamacaddii Kismaayo 1000 qof oo diyaar u ah inay ka qayb galaan shirka marka waxaa lagu yiri suuragal maaha inaan dib u dhigno dadkaas aanu niri shirki baa la furhayaa dhibaato weyn baa nooga imaanaya xataa dhagaxday nagala daarayaan haddaanu shirka joojino sidaa darteed qolihii Maraykanku waa ku qanceen in shirka la furo iyo weliba dowladda Ethiopiana waa support garaysay in shirka la furo shirkii markii la furay kabacdina nimanka xamar jooga waxay ka qanciyeen oo yiraaheen nimankaas Kismaayo jooga nimanna ictiraafsan ma aha mana doonayaan inay dowladda muwaadad aan la garanin waxay doonayaan inay dowladda hoos yimaadaanna ma ay doonayn oo ay ayagu caqabad uga dhigayeen shirka inaan la furin laakiin runtii marar badan oo ka horreysay la sheegay ama la yiri waxaanu hoos tegaynaa dowladda ilaa 3 goor la casumay oo markii ugu dambeysay la yiri cid allaale iyo ciddaad usoo dirsanaysaan oo furaysa shirkan soo dira oo ha yimaadeen magaalada Kismaayo oo shirka anagu dowladdu waa dowladayadii waxaana rabnaa inaanu noqono federaalka weyn state ka mid ah inaanu noqono rabnaa waxaan doonaynaa inay noo yimaadaan ciddii shirka furi lahayd hase ahaatee ayagoo markii dambe ka cadajiideen oo ay diideen inay kasoo qayb galaan taasuna islamarkaas ay tustay dadkii international community-ga inay ayaga laftooda ay ka cadajiidayaan in shirka la furo waxayna yidhaaheen noo yimaadeen oo madaxda meeshuna noo yimaadeen siba waxay yidhaheen Axmed Madoobe iyo Darwiish iyo Almadoobe noo yimaadeen ayaguna waxay yidhaaheen waxaa dhacay hadda ka hor gobolkii Baydhabo intay yidhaaheen nimankan dowladda maamul intay dhiseen ayaga jeebkooda ah oo ay u direen maxaan ku sheegaya Baydhabo ninkii gobolka la yiri kaalay inuu aeroboortka oo aeroboortka laga soo jeebeeyay oo ilaa hadda inta la ogyahay uu xiran yahay sidaas oo kale ayay midda waxay rabeen
inay madaxdaana ay saas oo kale u galaan waxaana la yidhi maraykanka waxaa lagu yidhi haddaad bixinaysid damaanad garantii inaanu inta halkaas tagno aanu shir ku galayno isla markaasna adigu dayuurad aan leedahay aanu ku tegayno waa tegaynaa laakiin haddii kale ma tegayno saalax waxaan ku weydiinaya maraykanku wuxuu go ahead si wada marka waxa uu yidhi intaas kaliya aan kuu sheegay maraykanku wuxuu yidhi waaya iyagii baan nimankii baan la hadlaynaa oo waa ku laabteen oo weli wada hadalkii ayaga iyo dowladda ka dhexeeya maraykanku wuu ku maqan yahay laakiin reer kismaayo haddii la siiyo loo ballan qaado inay nabad wadankooda ugu soo laabanayaan diyaar bay u yihiin inay tagaan oo dowladda ay arkaan waayo waxaad su-aashaad weydiinaysa diyaar baanu ayna kaaga jawaabo saalax adoo mahadsan waqtigaadana uu yahay waqti dambe oo aad naga aqbashay waad ku mahadsan tahay maxay tahay caqabadaha hortaagan maamul sameynta gobolada jubbooyinka sida Jubbaland oo aad damacsan tihiin in aad ku magacaabaan sida ugu dhaqsaha badan su-aasha labaadna waxay tahay sidee bay uga qayb qaadan kartaa dowladda federaalka arrimaha hadda ka socda shirarka gobolka Jubbaland caqabada hortaagan oo ugu horeysa waxaa weeye nimanka xamar jooga Jubbaland oo u dhisanta oo shacabkeeda oo midaysan ay dhistaan oo maamul goboleed ay ka dhistaan ama dowlad goboleed sidii loo yaqaanba waxay u arkaan inay ku tahay baqdin ama ay dhibaato ayaga ay ku tahay ayay u arkaan sidaas darteed wax kastay ku bixinahayaan oo lacag bay ku bixinahayaan oo maxaan kuu sheegayay bulshada caalamkay ka dhaadhicinahayaan inay sida aan idiin sheegay inay dad raba inay hoos tagaan ay ahayn waxay u arkaan inay ku tahay maxaa la yidhaahaa street wax la yidhaahdo inay ku tahay bay u arkaan sidaa darteed allaaliya siday ku hor istaagi kareen waa ku hor istaagayaan midda kaleeto midda laga rabaa su-aashii kaleeto dowladda waxaa laga rabaa waxaa dowrkeedii inay qaadato dowladdu waxyaalo tiro badan oo reer Jubbaland ay qabsadeen ayadu inay qabato hadday maamulkii ay meesha ka dhisayso ayadaa la rabay kharashadan inay bixiso ayadaa la rabay daligeetidan iyo dadkaan inay isu soo ururso laakiin reer Jubbaland ayadaa dhamaystay oo intii oo dhan kharashkoodiina dusha u ritay isla markaasna dadkaan intaa tirada leeg isu soo aruuriyey oo maalinka maanta weliba ergooyin meelo fogfog ka yimid agtiina ergooyin ka yimid baa halkaan jooga Seattle Washington baa ka imid maxaan kuu sheegay Yurub baa laga yimid intaas oo dhan waa dowladda ahayd inay kharash garayso ay saas tahay waxaasoo dhan markii loo sahlay dowlka ay dowladdu leedahay waxaa weeye inay ka odayayso meesha ogaato haddii wax khaladaada ay jiraan ay saxdo isla markaasna haddii mar kasta waa imaanayaan dowladdu markay meesha joogto waxaa jirooda reernuhu soo cawdo ay yidhaahaan xoogaa anaga kuraasti baa noo ku yareeyey dowladda waxaas diil ka galaysa oo la macaamilaysa dadka shirka hogaaminhaya waxaasoo dhan iyo boqolaal kaloo problem oo yaryara dowladda la rabaa inay xalayso oo dowrkeeda qaadato sidaa darteed ma doonaysa dowladdu inay dowrkeeda qaadato waxay rabtaa inay maamul iyadu ay soo samaysay sidii madaxweynuhuba marar ka badan u yidhi maamul iyadu soo samaysay inay meesha keentay rabtaa hadda waxaad leedahay saalax waa taageersantihiin dowladda federaalka waana taageeraysiin miyaad leedahay taa midda kalena dhammaan dadka gobolada jubbooyinka ma ka siman yihiin fikirkan waa taageeraynaa dowladdu markay dowrkeeda qaadanayso oo dowlad ogol in halkaas maamul ka dhismo dadkaas ayagooda ay ka tusadaan meesha waa taageeraynaa meeshaan waxaa weeye jubbada hoose jubbada dhexe iyo godo jubbada dhexe iyo jubbada hoose hadda dadba kama maqnaa laakiin godo ayaa ilaa iyo hadda waxaa ka maqan delegatekiina waxaanu ognahay in laga shaqaynayo ay diyaar yihiin oo ay soo baxayaan oo hadda ay diyaar yihiin taleefon baanu kula hadalay diyaar baanu nahay shir baanu waxaanu ku qabanay garbaharey dadkii o dhan waa ku qarcinay inay shirka ka soo qayb galaan wayna rabaan oo waxaa weeye waa ayagu masiirkooda weeye dowladdu lacaga badan bay ku bixisa meel kasta lacag baa duulaysa soo ma garan oo problem baa laga dhex abuuray meeshii inkastoo hadda marxiladaas la dhaafay oo delegateska degdeg usugayna inay yimaadaan delegateyadii haddana dowladdu
aad iyo aad bay waxay isugu dayday inaan halkaas maamul goboleed ka dhisno. waad mahadsantahay saalax. kaas wuxuu ahaa ergey ka qayb galay shirka ka dhacay ee gobolka Jubbaland loogu magac darayo Jubbaland State. waad mahadsantahay waqtigaana siisay saalax xasan jaamac. waxaana jecelnahay wixii teleefoonaha inay ay noo furmi doonaan sida u dhaqsaha badan. salaamu calaykum. maxaad ku gabagabeynaysaa? waxaan kaloo ku darayaa intaas infaati wax allaaliya wixii akhbaar information nagala soo xiriiri karaan dadka North America iyo Europe joogana waxaan u sheegaynaa Jubbaland 22 sano dhibaato ku socotay waa la bahdinayay waa la baabi'inayay. maxaan kuu sheegay dadka xataa hadda markaan u nimid dadkii maaha waa dad 22 sano madaxa laga garaacay oo dhibaataysan oo aad u dhibaataysan. waxay sugaysaa Jubbaland waa dadkaas weliba dadkaas North America jooga iyo Europe dadkaas jooga oo u dhashay oo ka soo jeeda ayay sugaysaa. waxaan leeyahay ammaan baa ka jira magaaladii, waana doon tahay waana fiican tahay. wallaahi waa baxaa xeebtaan tagaa, waa ku qubaystaa, waa ku lugeeya salaada subaxa markaan tukado. soo ma garan ma jirto wax baqadinu ma jiro. kaalaya welcoming you, waa idin soo dhaweynayna. kaalaya waa wadankiinii, waa idin sugaysaa. idinkaa laydinka rabaa. waxaan niri waxaan idin wadnaa warshado, waxaan idin wadnaa khayr, waxaan idin wadnaa barwaaqo, waxaan idin wadnaa aqoon, waxaan idin wadnaa dhaqaatiir, waxaan idin wadnaa maxaan kuu sheegay wax walba oo aqoon leedahay baan wadnaa. waxaanu dadka u sheegaynayna inay intaas oo dhan ay ka helayaan wayinka. kaalaya imaada wadankii waa idin sugaya, waana qaybta ugu barwaaqaysan Soomaaliya. idinkana idin sugaya. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاس وحا أرجع كبده جبوينكا كان قبل الشركة لو يجلينا معمول سمين جوبلاند ستيت وما ستة صالح أديات بانكو من نقينا. aad iyo aad u mahadsan yahay cabdikariin oo wareysanayay ergeyga gaarka ee la yihahdo saalax xaaji jaamac saalax liib oo ka mid ah siyaasiyiinta haddeertan isku dayay inay sameeyaan ama u yeelaan maamulkaas Jubbaland State. barnaamijkeenii liveka sabtidaha daawadayaal baa hadda inoo bilaabanaya. waxaana marti inoo ah maanta cabdullaahi cali oo ah aqoon-yahan siyaasi ah oo joogana magaalada Minneapolis. waxaa kaloo xusid mudan sidaan caadada inoo ahayd sabti walba barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay maamulka Jubbaland iyo stateka la subshay iyo sida ay dowladda uga soo horjeedo ama dadka shacabka maxaa dhalinaya dowladda federaalka inay ka soo horjeedo maadaama dowladdu ay tahay ma dowlad federaal. marka waxaan idinka codsanayaa dadka ina daawanaya in barnaamijka su'aalaha ama telefonka waa idin furan yahay laakiin in aad mataqaana la soo weydiisaan hadba programka ka hadlayno iyadoo aan lagu xadgudbeynin telefonka iyo mataqaana dadka meesha jooga. midda labaad waxaad nagala soo xiriiri karnaa sida caadada ahayd Sama TV www.somalytv.minnesota.org iyo Facebook oo ah isagana waa mataqaana Sama TV. cabdullaahi marka hore kusoo dhawo Sama TV. waa mahadsantahay walaal Timir. sidaan la socono wiigagani waxaa jiray mataqaana shaqaaqado badan oo idaacadaha ay sheegeen oo dowladda federaalka oo si cad uga hortimid in aan la suubin karin ama lagu shiri karin magaalada Kismaayo ama maamulkan hadda la dhisayo ee Jubbaland State. marka maxaad u maleynaysaa dowladda federaalka ay uga hortimaaday maamul dhisidaan maadaama iyadu ay ahayd federaal? Timir walaal horta waxaan rabaa inaan salaamo odayaasha Sama TV. waxaan kaloo rabaa inaan salaamo dadka mataqaanaa dhageysta ama daawado xiiseeya Sama TV. kadib su-aasha ah maxay dowladdu uga hor imaanaysaa administrationka laga dhisayo Jubbaland intaanan u gelin waxaan rabay inaan horta wax yar gadaal ugu laabto goormaha Jubbaland la aasaasay arrinteeda tan. sidaan la soconno 4 sano ka hor baa la bilaabay in laga shaqeeyo Jubbaland State oo waxaa lagu bilaabay waddanka Kenya. waxaa loo sameeyey constitution iyo sharci. waxaa loo sameeyey delegationkii sidii loo sameyn lahaa. waxaa loo sameeyey ciidamo gobolkaas oo dhan qabta oo la shaqeeya ciidamada African Union. marka horta arrintan waa ka horreysay dowladda cusub hadda timid. dowladihii ka soo horreeyay dowladdaas na way ka warqabeen waana la shaqeeyeen laakiin nasiib xumo dowladda cusub markay dhalatay
waxaad u malaysaa inay number one issue ka dhigatay inay Jubbaland ay mataqaanaa hor istaagto inay dhisanto. markii hore waxay tiri waxaa programka wata Kenya iyo wadamo ajnabi ah laguma shiri karo Nairobi. markii laga ogolaaday oo lagu yiri okay waxaan ku shiraynaa wadanka gudihiisa, then waa tahadeer timid annaga idin soo yeerinayna dadka aad rabtaan idinku shirkiinu macna male. marka timir arintaas horta waa arin faaqidayn tira badan u baahan, laakiin waxa inta cajiib ah haddii prime ministerka positionka si aad aragtid prime minister wuxuu ku sheegay constitutionka ma waafaqsana dhisitaanka waa usoo noqonaynaa doodaada ma ka tegin. waxaan rabnaa hadda bal taleefonka inaan qabno, dad badan baana soo wacaya. asalaamu calaykum walaal. calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. ay walaal magacaaga iyo su-aashaa qabtid walaal. tvgana maxamuud maxamed saalax baa la yidhaahaa. midna waa dhiiragelin, midna maanta su-aal waa ka baxsan tahay waxyaalahan. okay. innaga anigu cabdullaahina waa salaamayaa. okay. odagii muxuu ahaa wasangeli weeye waa leedahay. okay. waxbana kala qarin maayo meeshaan. haye. wax qarsoon ma jirtay. haye. ninkan maanta shalay ra-iisul wasaare waa maqlaysay, maanta waa u hadlay. ninkan waxba ra-iisul wasaare maayo wax ugu soo wey. waxaana la yidhi sheeg adiga arrimahaas jubbooyinka inaan raali laga ahay. waxay ku andacoonayaan annaga noloma sheegin. war saddexdii wasiirkii maaliyadda, wasiirka arrimaha gudaha, wasiir isbaasigii shirka imaadaa la yidhi. waxaa la yidhi hukuma amaadaa war maanaa yaabay laqday. ujeedadu waa ka weyn tahay waxaas. xasan sheekh ma rabo jubbooyinka in maamul isaga hoos taga oo dad kale loo magacaabo ayuu rabaa. afkiisuna ku yiri dadkii deegaanka deganaa xamar bay joogaan oo qaxooti ku yiri. waa gartay marka waxaa loo baahan yahay keliya maaya dood iyo hadal uga baahnee wiilgaa dhexdiisa in mudaharad la sugiyo, adduunka la tuso, loo qoro, lagala noqdo kalsoonida lagala noqdo haddii suurtagal tahay. taasaas u jeedila. waaya maxamed waaya wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. taleefon kale. halo asalaamu calaykum. asalaamu calaykum walaal. wacalaykum asalaam. walaal t v-ga iska gaabi magacaagana noo sheeg iyo su-aashaa qabta. t v walaal iguma dheera, magacayga canab baa la yidhaahdaa. canab waayaha soo dhawo walaal. waa idin salaamayaa sama t v iyo salaamullahi. halo salaamullahi waa ku maqlaynaa walaal. okay. maxaan ku dhahaa gobolada jubbaland baan u sameynaynaa maamul 22 sanaad ay dhib ku jireen. dhibka maanta jubbaland oo ka saarahayo muxuu ooga saari waa 22 sano hore. waa qodob. okay. midda labaad waxaa weeye walaale hadda dawlad baa noo curatay, kumeelkaarki waa ka baxnay oo dadki dhan ay heshiis ku yihiin. maanta waxaa la kala gogoynhayo maxay tahay? okay. waa qabyaalad iyo quran hore noo baaba'satay, lala hartay 25 sano. hala joojiyo baan leeyahay nimankan waaweyn ee odayaasha ah ee adduunka qaribahayo ummadda ha ka dhaxbaxaa ilaahay hadday yaqaanaan. dadkaan dib iyo rafaad iyo gobolaysi waa ka soo daaleen. maanta dawladdan waa dawlad rasmi ah, adduunka dhan laga aqoonsaday. dad waaweyn weeye 22 sano nimco iyo barwaaqo ay keeni waayeen. maanta oo dawlad rasmi ah la hela keeni mahayaa. ilaahay hadday yaqaanaan islaamka ku jiraan ha naga fadhiistaan. waaya ha nafiyaan odayaashaan qabiil iyo qabyaalaad u faa'iidalay waa midda halkan la dhigtay. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. hal telefoon baa inoo haray axmed cali cabdiraxmaan. walaal magacaaga iyo su-aasha waa ku maqlaynaa. waxaana cali axmed ciise. cali haye. jubbooyinka ayaa kaa taqaa jubbooyinka macnaha dhibaatada ka taagan. haye. maamulka jubbooyinka ma maamulka deegaanka u madax banaan mise federaalka waa yahay cabdullaahi baa nooga jawaabi doonaa maamulka. waa yahay halo okay cabdullaahi waa maqlaysay
saddex qof baa hadlay oo kala duwan nina waxa waaye wuxuu taageersanaa maamulka gaar ahaan gabadhii canaba waxay si toosa u tiri maadaama dowlad la dhisay oo soomaaliyana ay 22 dagaal sugay ku jirtay odayaashan ha naga tagaan dowladdan ha loo daayo 22 maamul iyo nidaam la dhisi waayo hadda ma dhisayaan marka see adigu aragtaa may waa fiican tahay in mataqaanaa dowladda la taageero oo dowladda Soomaaliyeed la dhiirigeliyo laakiin hadda anagu constitution iyo sharci baan ku soo heshiin madaxda iyo dadka iyo dowladduna waxa laga rabaa inay iyagu constitutionkii lagu doortay ay dhiirigeliyaan oo la shaqeeyaan dadka Soomaalidana waa inay ogaadaan waqtigii hore oo ahaa in hal qof taliyo waa laga soo tagay hadda taas waayaan constitution u samaysanay oo sharcigu uu yahay war madaxweynuhu sharciga powerka qayb ku leeyahay baarlamaanku qayb ku leeyihiin golaha wasiirada iyo executive branch uu qayb ku leeyihiin local administrationska iyo gobolada iyo degmooyinkuna qayb ku leeyihiin marka in qolob boobto waa wax noo celinaya wixii aan ka nimid way marka canab waa gabar mataqaanaa Soomaaliyeed fiican qabiyaaladuna wax fiican maahan laakiin dadku gobolada iyo tuulooyinka ay joogaan inay iyagu dhistaan wax ay iyagu leeyihiin intaasna u qaylinaa intaas baa laga rabaa marka arintu waa taas weeye midda kale to very important kana waxa weeye maadaama hadeer markii ugu horeysay dowlad transition ka baxsanaan samaysanay waxa fiicnaan lahayd madaxda wadanku inay raacaan sharciga اوكي ابو ما سنتا ويلي دونتين وين سعود عبد الله تليفون باقبل هلا السلام عليكم السلام عليكم والله سؤاشا اي مقعد والله مقعد waxaa jaamac dheer waxaan ka soo hadlayaa Minneapolis niyo maamulka Jubbooyinka waa taageersanahay laakiin niyo waxa u mudaa Sama TV inay hal dhinac leh keenayso hal fikrad leh keenayso dad badan baa tago qabiilo badan baa tago meesha dadka qabiilada kala ka dhashay maxaa meeshu keenayeen oo fikirkoodu dhageysanayeen jaamac aad iyo aad uma santahay waxaan filayaa hadaan kaaga jawaabo Sama TV way u furan tahay hadii hadda naga weyseena mar kale waxa way diyaar haday joogan jaalid ay kamid yihiin dad u dhashay gobolkaas inay yimaadaan anagu Sama TV waxay diyaar u tahay dhamaan dadka daga inay wareysato maamulka inay rabaan in kale Cabdullaahi arintaas ay u arkaysaa ma jaamac waa runtiis weeye beediyada waxa laga rabaa inay transparent noqoto inay dadka oo dhan cover gareyso midka diidan midka raba midka kale oo si kale wax u arka dhaqan bay u noqotay Soomaaliya inay qolo walba wixii iyadu markaas ay aaminsantahay inta meel isugu keensato ay isla marka jaamac arintiisu arin macquul oo macna la way halo السلام عليكم aniga ها والله سؤاشا السلام عليكم عليكم السلام والله تي في iska gaabi codkaan ugu soo noqonaya ما تمام qofna ma ila joogo TV-gana ma bay sheeg ma bay dheerfna horta ku salaamay waa ka qaadno Cabdullaahi waa salaamay dhageystayaasha maalin wanaagsan dhamaantiin galab wanaagsan aniga dhalinyarada waxa waaye isha waa hal hado leeba dad badan hortay ka hadleen adeerka ugu horeeyay iyo canab iyo dadkaas hadallo macquul ah sheegan oo ma bas su'aashada waxa waaye aniga rabaa adiga iyo Cabdullaahi iyo dhageystayaasha rabaan inay ogaadaan hadii meesha ay tahay meel Soomaalida wada looga raadina TV-ga oo rabaan umadiisa maartay warbixintooda soo gudbsadaan maxaa qof la dibad galay Cabdullaahi oo dhinaca kale soo laado casimo weysan uu keenay Cabdullaahi maxaa u yeeshay maadaama uusan jirin qof adiga yacsi ka dhaama kula dibad galayna inaan hal dhinac kaliya u hadasho inaad maxaa TV-ga u timaad maadaama nin siyaasi mulka sheego okay magacaaga horta noo sheeg magacaaga maxaa weeye magaceeda dumar waa saaxiibka daanta xaaji daandi okay aad iyo aad baa umahadsan daandi haddaan aniga ku jooga sameeyay anagu waxaan hadda barnaamijka u furno waxa weeye in Soomaalida gaar ahaan jaaliyada degan inaan ka qayb galno aragtidoodana si cadaalad ah oo fair and balance loo fiirsho marka diyaar baa loo yahay Cabdullaahi say waragtaa daandi adarkiisa daandi waa mahadsan tahay maybe inay iga hoos baxday inaan ogolaado in dad kale oo expert loo yeero iyagu hadda waxaan aniga aaminsanahay ka gedisan laakiin ogow hadda anigu dhinacna ma ahi dhinacyada is hayee waxaan rabaa inaan sheego constitutionka iyo wuxuu qabo iyo mataqaanaa legal systemka anaga nafarayo tan kaleeto hadda dadkii oo dhan baa dhegeysanaya sida adoo kaleeto qofkii raba inuu
isagu wax aniga ka gedisan uu qabo waa ku soo wici karaa waayahay waay Can I accept I debate with you next program? waa ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa dandi ha kusoo dhaweynaynaa waxaan kaloo daawadayaasha aan rabin inaan u sheegno Sama TV way ku marti qaaday dad badan oo kala duwan oo siyaasiyiin iyo aqoon-yahano cabdullaahi markaan u waceynay kulli waa lagu marti qaaday dee cabdullaahi kaalintiisu ka soo baxay waxaa la rabaa marka siyaasiyiinta kale iyo aqoon-yahanka kale iyo culammada kale oo Soomaali ah ama gobolada u dhashay inay kasoo qayb galaan doodani si dadka u dhageystaan fikradoodan ay ka dhibtaan cabdullaahi waa baan soo laabano hadduu wax jirin telefonaad dadku waxaa u maleysaa inay aada u kala qaybsan yihiin arrintan marka aan bal su-aasheen aan usoo noqon hadday hadal baa waday oo ah ra-iisul wasaaraha si toos marka arrintaas xukuumadda ra-iisul wasaaruhu isagoo og xukuumadda inay federaal tahay isagoo og dadkan Jubbaland hadda state sheegan inay yihiin dad Soomaaliyeed taageersana isaga muxuu uga hor yimid Timir I wish inaan ka jawaabi lahaa wuxuu uga hor yimid kolley hadda siyaasaddu meelo tiro badan bay taabanaysaa anigu waa akhriyey prime ministerka statementigiisa waa akhriyey statementiga prime ministerka waxay leedahay sharciga ma waafaqsana shirka ka socda Kismaayo laakiin hadda constitutionka waa qoran yahay sharciga meeluu ku diidan yahay inta badan anagu hadda maxkamadaha dad ka shaqeeya iyo dadka sharciga ka shaqeeya waxay fahmaan marka aad rabtid inaad sheegto jira war waxaan sharciga ma waafaqsana waa inaad qeexi kartaa waay sharciga uga soo jeeda kuma arag anigu nin hadda mataqaanaa expert iyo constitution expert maahi laakiin intaan ka aqriyay constitutionka waxaa ku qoran dadka localka baa samaysanaya administrationkooda dowladda roolkoodu waa facilitation bes baa ku qoran marka anigana waxaan arkaa dadka jubbooyinka hadda jooga inay iyaga isu yeerteen ay iyaga xitaa facilitationki iyagoo u turaya dowladda ay la bixeen facilitationkii marka waxaan aaminsanahay inay samaynayaan more than ay samayn lahaayeen maarata aad iyo aad baa mahadsan tahay cabdullaahi doodan waa inoo soconaysaa telefonkaan qabsanaa hallo asalaamu calaykum hallo ha walaal asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal walaale waxaan salaamayaa adiga iyo cabdullaahi iyo barnaamijyaha iyo dhammaan akhyaarta Sama TV magacaa walaal magacayga Hanad baa leeyahay Hanad haye walaal haye walaalow waxaan leeyahaa saddex qodob baan ka hadli lahaa mid waa madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud midna waa maamulka Jubbooyinka midna waa idinka barnaamijkaada soo deynaya madaxweynaha waxaan dhihi lahaa waxaa u fiicnaan lahayd madaxweynuhu inuu shacabka isku diran Soomaaliyeed meel kastay joogaan oo una taageero shacabka lana shaqeeyo waxay keensadaan saa ognahay hadda Maraykanka aan ku noolnahay qofkii citizenka oo fikrado fiican keena dowladdu way la shaqeysaa sax iyagana kusii taageera sida qofkaas wax kale uu sii sameeyo berrito marka madaxweynaha waxaa u fiicnaan lahayd maadaama dad burbursan uu matalayo dadkii isxilqaama inuu dadkii shaqsiyo ku hambaliyeeyo kharashna ku kiciyo waa garta maamulka Jubbalandna waxaan dhihi lahaa cambaareynta in kaga timid dhinaca dowladda ha u joojinina dowladdiina taageera dadaalkiina sii wada gobolada kalena aynu ku dila ninkana waxayna dhihi lahaa dadka ina soo wacaya muran hala samaynina waxay ina weydiinayaan ujeedkii aada u furteen dooda waad samayseen dadkuna wayna maqlayaan iyagaana fikirkooda kasoo bixin doona dadka ininka argument yahay nala dhex marinine fikirka fiicanaad wadaan iyo dadka doodaha taagana hadda keenaysa halkaa kasii wadaana maasadiin waa mahadsan tahay Hanad aad iyo aad baa mahadsan tahay taladaadana waa qaadanayna hadduu alidmo telefonkaan kala qaadanayna hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal su-aashaada iyo magacaaga marka hore walaalo magacayga Sahra la dhahaa okay Sahra magacayga Sahra la walaalo haye waa ku maqlaya walaal aad baan ku maqlaya si fiican magacayga Sahra la walaalo su-aal baan rabay inaan weydiiyo dadka magaalada Kismaayo Jubbaland dhageyna way ka badbadatay dadka intaa way hadal hayaan maamulka waxa weeye maamulo badan baa wadanka ka jiro dad walbana iyagaa maamulkooda dhistay
dowladuna uma dhisinin kulli maamul sidaan wada ogna maamul goboleedyada ka jira wadanka mid dowlad inta u tagta usoo dhistay ma jirto dadkeeda unbaa ilaa iyo intaas aynu ognahay ilaa burburkii aayahooda iyaga unbaa ka bishanayay iyaga si ay danahooda iyagaa ka og dowladda iyo dadka hadda hadlaya marka waxaan dadka su-aal lahaa tusmaayo waxa zaa'idka ku ay gobolada dheer tahay ee dowladdu taaganta uleda ma dhisan karto wadamada iyadoo aan ognahay balweyne kulli maamul dhista la yiri oo baydhabo dhista la yiri oo kuwaynu ka ognahay puntland hore u dhisatay oo somaliland hore u dhisatay aan ognahay jubbaland maxaa danta laga leeyahay oo loo hortaagay inay maamulkan iyadoo dhistan dadkeed u tashadaan maxay tahay mid kale waxaan dhihi lahaa dowladdu ma waxay ka talisaa muqdisho keliya gobolada kaleeta maysan shaqo ku lahayn intaasan dadka weydiin lahaa sahra aada iyo aad waa umahadsan tahay waxaad su-aasha waxay weydiinaysaa ay ku celinaysaa cabdullaahi dowladda federaalka waxay leedahay maadaama maamuladii kale soomaalidu ay dhisteen jubbaland maxaa loogu diidaya well question oo macna la weeye su-aashaas macnaheedu laakiin waxa weeye waxaan weydiinaynaa dowladda prime ministerka iyo madaxweynaha waxaa kaloo oo iyaduna in la macneeyo u baahan madaxweynaha wadanku haddeer wadanku wuxuu ka baxay muddo ilaa 7 jeer ah ilaa 15 wadan oo adduunkana waa tegey waxaa nasiib daraa inuusan dadkii Soomaaliyeed oo madaxweynaha u ahaa xitaa uusan u tegin oo ay ka wada hadlaan raadiyaha ay ka wada hadlaan iyo TV-ga prime ministerku sidoo kale marka waa tegey afgooyu tegey guduhu tegey laakiin uma malaysid inuu Soomaali 4.5 wax ku qaybsatay waxoodu banaanka yaalaan inkastoo prime ministerka wadanka yahay haddana hadda isaga basekiisi ku yimid bay ka mid tahay qolooyinka haddeer jubbooyinka wax dhisanaya anigu marna uma arag isagoo tegaya waxyaabaha dowladdu ay ka gaabisay bay ka mid tahay dadkuna ay arkayaan marka waa gabadha waa runteedu weeye maaragtay inay kuwashigalayso waa kismaayo marka dowladda loo celinaya inay marka arinta iyada dowladda telefonkaana qaban hallo assalaamu calaykum calaykum salaam awal magacaaga marka hore iyo su-aasha walaal magacayga waxaa lahaa maxamed Soomaali waxaan ka soo wacayaa Minneapolis waa comment aan bixinayaa ama fikradeyda gabadhii hadda su-aasheeda weydiisay sax kismaayo waxaa loo hadalhayaa wax kale maaha waa xoolaha yaalla waa dhaqaalaha yaalla gobolada kale waa dhagax iyo geed kismaayo waxay isku darsatay beero iyo bad marka dowladdan aad sheegaysaan dowlad leedihiin dowlad kilomitir iyo bar iyo 3 kilomitir xamar ka talisa horta dowlad maaha inay marka u fadhiyaan dadku ay u arkaan ay magac title siiyaan madaxweyne oo dadka ay niraas u siiyaan la yiraahdo gurgurtin iyo prime minister aan number 4 iyo algaab dhaafin horta waa nasiib daro oo goboladii maamulkiiskooda u dhistay ama xeed iyo xiin ama galguduud ama galmudug ama puntland ama somaliland lilo waa iska nasiib daro arrinta ku saabsan kismaayo isha lagu hayo wax kale ma hayo waa dhaqaalaha waxaa ku jira gas waxaa ku jira zinc waxaa ku jira bir waxaa ku jira badi oo shidaal leh marka 50 sano soo socda yaa xukumi doona waxa la isku haysto kismaayo ama ha hurdaan oo ha loo taliyo ama maamul ha dhistaan السلام عليكم. وعليكم السلام محمد آدي عبد الله ما صدق عبد الله كورن محمد صومالي محمد صومالي يعني كمرة عسني لابو حيابط اوكي نمبر 1 كمرة عسني كسمايا كخيرات بدن صومالي ده ترى بدن باقو وصل أرنتا يدا صوماليا ملكستو تكت خيرات بكبح يا خيراتكو هكذا قد سنادو ما بكوين بديهين كوين بريهين marka anigu ma arko inay arintaas valid tahay laakiin waxaan kaloo ku raacsanayn madaxda wadanka in la qiimeeyo u baahan yihiin madaxweynaha wadanka prime ministerka wadanka haddaadan sharfin adigu wadankaaga iyo madaxdaada ma taqaanaa qof kale ku sharfi maayo marka waxaan aaminsanahay in aan magacyo loo yeelin ay madaxdeena yihiin aanu ku faano hadday khaldamaan laakiin u sheegayna waxaan leenahay war madaxweynayaal haddii ilaahay baan khaldamin waxbaa khaldana wax sax ma aragtay haddaan shacabnahay intaasaana laga rabaa laakiin inaan taageerno dhinac istaagno welibana aanu qurxinaan looga baahan yahay waa ku mahadsantahay
daawadayaal hadal hilmaam kuma jiro waxaan filayaa Sama TV waxay idiin soo gudbinaysaa sawirkii shirka oo hadaayana soo baxay marka nala daawada markuu shaashada ka soo baxo sawirka hadda aad aragtaan waa sawirkii shirka waana jaamacadii ku taala Kismaayo ma xaruntii ama goobtii shirka lagu qabanayo weeye ilaa sidoo hadaan uu inoo sheegay Saalaxna ergooyin aad u fara badan ilaa kun gaar ah ka soo qayb galay kuwa kalena waa la sugayaa marka Cabdullaahi wuu ka soo horjeestay Cabdullaahi taleefanka intaan qaban waxaan rabnaa inaan horta dadkan gobolooyinkan Jubbaland ka baxan Kismaayo gobolooyinka kale sida Marka iyo sida u aragtaa iyagana damada dhisanaya Marka iyo Jowhar iyo Marka iyo adigu Shabeellaha hoos gobolada isku dhahay ilaa Abgooyi ilaa Walaweyn maamulkooda sida Jubbaland ma u dhismayaan ayna see u aragtaa aniga waxaan ka maqashiisnahay in ay Nairobi fadhiyaan dad tiro badan oo ku abtirsada goboladaas Bay iyo Bakool iyo Shabeellooyinka dadkaasina ay rabaan in iyagu hadda administrationkoodii tirsadaan waxa kaloo oo dhacday in dawladda madaxdeedu ay u magacaabeen dad Baydhabo oo walibana waxaan maqashiisnahay in xogaa ceeba ka dhacday halkaas oo nimankii mataqaanaa dagaal ba kaliftayba waana waxyaabaha looga mataqaanaa digayo dawladdu inay samayso inay dhex gasho dadkii shacabka ahayd oo ay qolo la safato qolooyin kamid ah waa adoo mahadsan waa inoo soconaysa doodaada taleefankan balqabanayna halow salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waa kaa qaaday magacaaga iyo su-aashaa qabto walaal waxaa la yidhahdaa khayra sahal baa la yidhahdaa walaale aniga waxaan qof Jubbaland ku dhalatay maxaa Jubbaland madaxweynaha waa la doortay waa nin Soomaaliya u doortay Soomaaliya 22 sano ah ku jirtay ma garatay maxaa khaldan oo Jubbaland uu nin walba leeyahay madaxweynaha wadan buu leeyahay maxamed maanta guriga ugu hantiba Soomaaliya ku kala madaxweynaha Soomaaliya wala soo gudbay dadkii hantidiisa baa la haystaa xoolihiisa baa la haystaa kama hadlo Jubbaland tan baas maxaa ka soo waray oo ninka deegaan buu leeyahay maxaa ka qaldan oo meesha dhibka keenay waa maasan tahay waa isla su-aashii waa Cabdullaahi waxaan filayaa taasi waxay u taalaa waxaan ka jawaabay dawladda ama xukuumadda ka jawaabayso annagu haddaan nahay meedii waxaan rabnaa inaan aragtidii inay fikirkiini halka kusoo bandhigtaan waana la daawanayaa waxaan u maleynayaa madaxweynaha laftiisa inuu daawanayo inuu internet ka daawan doono halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga iyo su-aasha walaal magacayga waxa weeyaan xirsi bahal baa la dhahaa magacayga hooye xirsi haye waxaan ahay walaal dadka taageersan in jubbooyinka maamul loo sameeyo laakiin waxaan rabaa meel ummadda Soomaaliyeed inaan xoogaa tala ka bixiyo dhinacna su-aal baan waxaa weydiinayaa Timir iyo Cabdullaahi labadiinaan su-aal idin weydiinayaa taladaan marka hore horumarinaya taladeedu waxa weeye ummadda Soomaaliyeed meel kastoo maamul ka jiro ama gobol ka jiro ama wax laga dhiso maamul laga dhiso horta ummadda Soomaaliyeed waa inay ogaadaan ayagaa iskale haddii gobolada dhexe maamul laga dhiso Soomaali baa iskale haddii Somaliland maamul laga dhiso Soomaali baa iskale haddii Puntland maamul ka jiro Soomaali baa iskale meel kasta oo maamul laga dhiso ummadda Soomaaliyeed baa horta leh wax kastana dawladii in laga sugo waxa weeyaan xaq ma ahan dadku inay wax dhistaan oo goboladooda waxa weeyaan ay dhistaan xaq bay u leeyihiin in waxa weeye jubbooyinka waxa weeye maamul loo sameeyana xaq bay u leedahay dadka degan inay maamul u suubiyaan gobolkan aynu deganayo Minnesota waxa weeye dawladda federaalka ah oo Mareykanka iyo Barack Obama oo ma sameeyaan maamulka iyaga maamulka soo doorta governorka iyo dadka u talinaya iyaga soo doorta iyaga ismaamula marka waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waa inay ogaadaan dadku goboladu waxay xaq u leeyihiin iyo dawladdu waxay xaq u leedahay inay kala bartaan horta weeyaan waa gartay su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan Cabdullaahi ummadda Soomaaliyeed dawladda maanta jirta prime ministerka iyo madaxweynaha labadaba way taageersan yihiin ayagaana soo dhisay marka wariyaasha Soomaaliyeed iyo dadka madaxda ama gobolada u ah waa in ay weydiiyaan prime ministerka iyo madaxweynaha waxa constitutionka ku jira waxa ay u garamarahayaan oo macnaha waxa weeye dadka maamulada ay dhisan lahaayeen iyo wixii ay hagaagsan lahaayeen waxa ay uga hor imaanayaan dadka iyagoo dawladda
soo dhisay oo taageersan waxay u kala cayrinayaan oo macnaha waxa weeyaan dadkii macnaha waxa weeyaan ay uga hor imaanayaan inay wax samaystaan waa in lala nabadgeleeyo la weydiiyo su-aalahaas weeyaan madaxweynaha iyo bareemareysa waa mahadsan tahay xirsi bahal I think inaad mataqaanaa really aad ka hadashay wixii loo baahnaa in laga hadlo annagu ogow 1960 markaan xornimada qaadanay 9 sano un baan dimuqraadiyad ahayn intii ka dambeysay including civil warkii kaligistalis iyo dadku inaysan ka hadli karin waxay rabaan baan ku jirnay marka dabeecad baa jirta war wax walba ninka leaderka yiraahdo waa inaad mataqaanaa aad sabcan wadaacan tiraahdaa and this is exactly waxaan rabnaa inaan ka baxno in dialogue la sameeyo la wada hadlo oo laga doodo oo wixii constitutionka ilaa waa wax qoran oo paperka ku yaala oo la isku raacay wixii laga wada hadlo la yiraahdo war madaxweyne with all respect khalad baad ku samaysay constitutionka marka xidse waxaan u malaynayaa inay aan waa cusub galayno arinta hadda jubbooyinka ka taagan jubbooyin kaliya ma ahane waa soconaysaa ayaamaha kan maxaa yeelay Bay iyo Boqol administration baa laga rabaa Hiiraan iyo Central Somalia administration baa laga rabaa Banaadir administration baa laga rabaa dawladda cusubi uma ka dawlad rabta inay gasho hawshaas difficulty-ga oo easy-ga aan ahayn waxay rabtaa waan u malaynayaa xoogaa inay intay 4 sano ay iska centralism ay ku gadgataan madaxweynaha maanta qodbadiisa waa dhageysanayay markuu furayay golaha baarlamaanka simply wuxuu yiri war federalismka long time buu u baahan yahay laakiin hadii intaan long time maxaa la samayn doonaa within that time wadanka ma waxa ku dhaqaysaa central government mise long time ki ina maanta ka bilowda la rabaa oo mataqaanaa constitutionkii aad dhinac gashid marka ma cadda cabdullahi baan waasantahay hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga iyo su-aasha cabdullahi على المحل باليرادا حكا سوعة مليابوس سؤال عن قبوحيتها هذه شرعي لغو بيز قريه 4.5 هو قبيل وكل سنة شرعي ده maxaa keenay dadka reer Kismaayo in la dictatornimo loo isticmaalo oo la yiraahdo wax la idin qabanayna oo intuu madaxweynaha beledweynaha tagay uu ku yiraahdo la video waxa ku jira YouTube-ka maamul samaysta marka ummaddu waxa lagu soo celinaya gumeysigii iyo xasuuqii 20 sano lagu wadi dagaalka mise kuwa kuwa daami doona al-shabaab ila al-shabaab waa dad gacmaha lagu hagaajatay kuwa maxaa qalin uga jaraan sharci darrada waa maasantahay maxamed calaykum salaam maxamed waa maasantahay intuuna ka jawaabin bal aqalno telefonkan allo asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo su-aasha qabta walaal magacayga waa Cabdul Cabdullaahi Salaad walaal waxaan ku weydiinayaa su-aal waxa weeye su-aasha horta Soomaaliya 22 sano qax ahayd ma garatay waa gartay dhibaatada maxaa la dhihi jiray wax badan bayna soo qabtay qurbadana keentay haye madaxweynaha waxa weeye su-aashiisa markuu madaxweyne yahay oo madaxweyne Soomaaliyeed yahay inuu gala ma ahan haye waxa weeye hantibaa maanta maqan oo maaragtay Soomaaliya dadkii saqiiradii maanta qurbo joogay kii Kenya ku xanimada qaxooti ku aba hantidiisa xamar bay taalaa marka ismaayo ninkastana deegaan buu lahaa ninkastana marka waxay noqotay deegaankiisa uu dhurta soo maaha maxaa meelaha kale looga hadlaynin oo maamul samaysta uu madaxweynaha u leeyahay dad baa isagoo duwaa lagu dhahay meeshan jawaab ka kiciyo oo shaydaan ka kiciyo oo cadowga Soomaaliyeed ka kiciyey oo naftiisu huray maxaa madaxweynaha wadan uu laheen asagana laheen ka wax ka degana jirin qoorti inuu u soo inuu yiraahdo ana maamulayo hoos imaanaysa wadada kalena uu yiraahdo ha maamushaan dadkii lahaa eeblo waa maasantahay su-aashaas madaxweynaha weydiinaynaa waxaan filayaa barnaamijka maadaama uu laaf yahay inuu dhageysanayo ama mas-uuliyiinta dhegeysa bal cabdullaahi adigu see u aragtaa eebla walaal anigu ma aaminsanin madaxweynuhu inuusan lahayn Jubbaland anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed inuu yahay and I think dadkeena inaanan isku qasin waxa jira iyo madaxdeena micnaheeda
iyo annaga waxaan diidanahay oo rabno inaanu dhahno war wax kan wax na qabta maahan oo dadka waxaanu ka hadlaynaa war administrationku sharci ma yahay legal ma yahay annaga waxaan legal ahayn ma caawinayno ha waxaan baybarkaa ku qornayn ma caawinayno madaxweynaha qaranka of course kismaayo asaa ka taliya asagaa hargeysa ka taliya isagaa boosaaso ka taliya madaxweynihii soomaaliyeed waaye federal governmentga laakiin limitation buu leeyahay isaga limit baa jira oo qolada localka waxay leedahay power qolada mataqaanaa federaalka power bay leedahay wixii baa la isku haystaa maahane inuusan madaxweynuhu wadanka lahayn ama kismaayo qolo kale ka leedahay ama qof qolo ay gooni u leedahay gobol iyo degmo anigu ma aaminsan waxaan aaminsanahay dadka iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka dhaxayso walaal soo noqon Cabdullaahi ha intaan telefoonka inoo imaanay waxa weeye runtii dadka inta hadda dhageysan waxaan filayaa inay la fahmin weli federaalka beesha caalamka beesha caalamku waa dowladdan ayada dhistay sidaan la soconana imbikaati markii lagu suubinayo federaalka beesha caalamku way ogeed marka xukuumadan federaalka ku timid madaxweynahan federaalka ku yimid ra'iisul wasaarahan iyo baarlamaankan federaalka ku yimid maxay uga hor imaanayaan maamul sameynta goboladani maxay u diidan yihiin baaslada beesha caalamkuse maxay ka leedahay iyadu timran waxaan aaminsanahay laba waxyaabood inay ay uga meermeerayaan federalismka horta waa mid Soomaalidu iyo adduunkaba powerka dadku waa jecel yahay powerka federalismkuna waxa waaye powerkii buu yareynayaa why because wuxuu sameynayaa powerra kale oo ka hooseeya waxyaabaha xantaayo suuqa yaala waxa weeye madaxweynuhu haddii uu arko Somaliland inay gobol tahay gooni taagan oo mataqaanaa federaal Puntland ay gooni taagan tahay inay Jubbaland samaysmato oo haddana powerkii sii yaraado oo shilinka ku sii dhaco maybe inay ku adkaato waa iska personal opinion ha midda labaad oo kale waxa weeye waa very difficult task because marka dadkaasi administration ka sameynayaan iyo federalismka waxaan horey annagu practical usoo sameynay maahan annagu over 40 sano la soo dhaafay waxaanu ahayn dad central government strong ay wado ninka madaxweynaha laga dhigaan hadda wuxuu xasuusanaya madaxweynayaashii hore powerkooda kursigu jeclaan madaxweynaha marka maybe inay waxaas tahay laakiin waxaa la qaatay inay u danayaan dadka iyo dalka waxaa la qaatay wixii lagu heshiiyey inay hore usii wadaan dadka Soomaaliyeedna waxa laga rabaa inay fahmaan wax diidan yihiin ay waxooda ama mudaharaad ku cabiraan ama ay qalin iyo warqad ku cabiraan ama ay ka hadlaan meediyada mar rabna inaan ku laabano waqtiga xumaayo beesha caalamka xaggeeda u soo noqonaynaa teleefonkaana qabanayno halo waa ku maqlayaa walaal halo ha walaal ii sheeg magacaaga iyo su-aasha rabta walaal magacayga waxaa la dhahaa muxubba haye su-aashan qabo waxaa waaye walaalow ayaan hore waa tii la dhahay Jubbaland loo sameynaa dowlad maamul goboleedka marka maamul goboleedka waa la baajiyay dowladdu way diidan tahay aan maqlee intay maray hadda xaaladda dowladdii wax ka socdo oo shirka fadhiyo ma jiraan waa mahadsan tahay taasi su-aashaasi waxaan filayaa in Cabdullaahi ay ma ka jawaabi kartaa muxubba waxay leedahay dowladdu waa diiday maamulkii ma la dhisayaaba muxubba walaal maamulkii waa socdaa dowladdii hadda waa arrintan hadda ka hadlaynaa xalkeedu meeshu marayo ma maqashiisni dowladdu dad inay ka joogaan waxaan filayaa shirka hadda muxubba aad u jeedid waxaa waa meesha waa golihii ama goobtii shirka lagu qabanayay shirka waxa waaye 2 beri ka hor buu bilowday shalay oo jimcaha buu hakaday maantana uu dib baa loo bilaabay waana la wadayaa ilaa 10 casho weli horena waxaa loogu bilaabay sidoo Cabdullaahi inoo sheegay waxaa lagu bilaabay 4 sano ka hor Kenya ayaa lagu subsay maamulkan iyo shirkan nidaamkani hadeertana gudaha ayuu soo galay marka waxaan filaynaa in 10 maalmood adigina ilaa bisha inuu soconayo sida hadda ku aragtay ergooyin fara badan baa ka soo qayb galay marka aan u soo noqdo marka su-aashii iyo Cabdullaahi sawirka sida ku aragtaan waa shirkii oo socda Cabdullaahi beesha caalamku maamulkan iyo dowladda haysto maxay soo dhaxgali weysay waxaa caado u ahayd awal in markii Puntland la bilaabay in beesha caalamku ay xoog ku saartay xukuumadda shariifka hadda beesha caalamka ama mahiiga xagu jira ma ka hadlin muxuu xoog u saari waayay hadda Saalax Liif oo hadda kamid ah
odayaasha waaweyn oo Soomaaliyeed kana mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliyeed hadeerna ergada fadhida Kismaayo ka mid ah wuxuu noo sheegay in Mareykanku uu la soo sameeyay xiriir ayna ka wada hadleen sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen la isugu keeni lahaa dawladda iyo mataqaanaa shirka maamulkiisa marka international community kama maqna laakiin waxaaba ceeba oo leadership ka iyo dadka madaxda ku ah dib ku ah in iyagoo madaxa loo kala turjumo iyaga shacabkooda waa dib hadis waxa la rabay inaan ka baxno oo international community ga hadis wax meelaha laga mataqaanaa madaxda dawladda xamar joogta ay ka gaabsatay waxay ahayd inay ka xishoodaan iyaga shacabkooda in ayaga waxay ahayd inay joogaan Kismaayo waxay ahayd inay hor fariistaan prime ministerka shalayto markii BBC du wareysatay baan maqlayay prime ministerku wuxuu leeyahay leeguma yeerin aniga inaan imaado Jubbooyinka laakiin haddana wuxuu leeyahay 3 jeer baan anigu wasiiro aan diray ay Jubbooyinka tageen oo anigu waxaan u tagi waayay marka meeshaas waxaad u malaysaa in xogaa ay fahmid la'aan ah war yaa hogaaminaya wadanka iyo sidee wax loo hogaamiyaa problem in jira waaya telefoonka qabanayna hello assalamu alaykum hello ha walaal waa ku maqlaya walaal assalamu alaykum magacaaga iyo su'aasha waa ka qaan waa magacaaga iyo su'aasha walaalo magacayga Xaliima la dhahaa walaalo okay Xaliima haye maxaana weydiinayd walaalo ama fikirkaaga Xaliimo walaalo waxaan idin weydiinayaa walaalka hadda Cabdullaahi Cali wuxuu yiri dawladdu meel kastay ka talisaa Kismaayo iyada ka talisa Buntland iyada ka talisa Soomaaliya iyada ka talisa runta la sheegaa fiican dawladdu inayna ka talisin taas oo dhan wax amar ku lahayn waa ognahay marka taas yaa horta laynoogu sheekayn inta kale waxaan dhihi lahaa aniga dadka Jubbooyinka in madaxooda waxay ka keensadaan ayaga aayahooda si loo daayo way u qalmaan dad maamul dhisan kara maamul goboleedna noqon kara shuruudihii dastuurka qoray inta maamul goboleed noqon karta way buuxiyeen sida aniga isleeyahay waa dhamma maamul goboleedada qaar xataa gobolna haysta maamul goboleedka marka inaan sidii la rabo aan yeelno oo qofkaan ku tuman karno ku tumanno qofkii aan ka arki weynana aan ka leexano madaxweynaha waxaan dhihi lahaa iyo ra'iisul wasaaraha horta madaxweynuhu ra'iisul wasaarihiisii buu soo doortay asaga mid isaga isugu talagalay buu soo doortay oo u shaqaynaya amarkiisana ka dhegeysanaya waxaan dhihi lahaa marka labadaba inay isagan cadaaladii loo soo doortay iyo dad isbedelkii ay rabeen inuu u gaarsiiyo ra'iisul wasaaruhuna inuu noqdo nin shaqadiisa qabsado oo wuxuu xaq u leeyahay yaqaana xaqiisana aan looga tuman taa ujeeda xaqiisa waa lagu tumanaya mid kalena ma raadin karo marka waxaan u sheegi lahaa bilaa calaykum in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidii loo doortay u shaqeeyaan anigu ra'iisul wasaaraha wax eedaba uma hayo waxba gacan uguma jiraan madaxweynahan waa leeyahay madaxweynaha inuu cadaalad u shaqeeyo uusan wixii 22 sano kahor lagu halaagsamay wadada inuusan dib waaya waa mahadsantahay intaas hala gaarsiiyana waa inuu dhageysanayaan jeclaan lahaay 4 sano lugooyaa dadkii 4 sano lugooyaa ama waan ka baxnay dibna waxa la arkaa 4 sano oo khasaartay oo kale inay soo waa mahadsantahay walaal aad baa u mahadsantahay fikirkaagana waa waxaan hadda u suubinay dad kale ayna sugaya waxaan filayaa xalimo waxaan rabay inaan halbidkaas anigu ma dhihinin dawladdu waa ka talisaa waxaan ku yiri madaxweynuhu wuxuu madaxweyne u yahay Soomaaliya oo dhan dadka waxaan ku yaabaan ma taqaanaa waa ka talisaa ma dhihin waa ogsoonahay inaan dawladdu xitaa xamar haysan African Union ay ku wardiyayso xitaa madaxtooyada maarat laakiin macnaheedu ma ahan inaysan hadda iyo dawladda sharciga ahayn dawlad la doortay oo sharciya oo madaxweynuhu uu madaxweyne u yahay Soomaaliya oo dhan weeye dawladda hadda meesha ka jirta waxana weeye dawlad u baahan ma taqaanaa in meeshan ka nimid hadda aan ognahay meeshan ka nimid maarat oo baahan hore u sii socono maarat aad iyo aad baa Cabdullaahi u mahadsan yahay waxaan filayaa farsamayaqaanadii inala jooga Cabdikariin iyo Maxamed baa waxay leeyihiin bal xoogaa break aan qaadano waxa loo dedejiyo bal waxay rabaan inay hees wadani aan noo saaraan waan isu soo noqon doonaa haddii waa la idmo waxaan leeyahay Cabdikariin iyo Maxamed bal waxaad noo heesaa noo saara heestii wadaniga ahayd
waxaana filayaa in haddii ay oo gabagabadii iyo markaan heesta ay inoo dhamaato bal haddii uu hayo cabdullaahi ugu dambeyn waqti yar baa inoo haraan filayaa maxaad u sheegi lahayd jaaliyadda hadda ina maqlayso gabagabadii timir iyo odayaasha farsamo yaqaaninta aad ba umahadsan yihiin anigu waxaan rabay inaan laba waxyaabood kusoo gabagabeeyo mid waxa weeye dadka wax dhisanaya oo jubbooyinka wax ka dhisanaya waa inay waxa ay wadaan ay horey usii wadaan waa wax lagu taageeraya soomaaliya waxaan kaloo fari lahaa inay la heshiiyaan dowladda oo sida haddeer ay wadaan iyo luqadda quruxda badan oo ah in ay dowladda soomaaliya aysan marnaba diidanayn ay arrintaas sii wadaan markii inuu shirkaasi joogsadana waa waxyaabaha mataqaanaa dib u dhaca ku keeni kara inay mataqaana marka waxaan rabnay inay shirkaas hawsha sii wato midda kalean rabay inaan u sheego dowladda waxa weeye waxaanu ka nimid meel aada u fog dhibaato tiro badan baa waddanka soo martay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dowladda waxay ahayd inay mataqaanaa si aada iyo aada looga taxadiray ay u mataqaanaa ay arrimaha soomaaliya u dhex galaan annagana hadda waa usoo ducaynaynaa marka arrintaasi waa arrintaas mid waxaan farayaa dadka ku goboladaas ka yimid jubbooyinka haddii aad taageersan tihiin shirka ka socda waa inaad ku muujisaan oo adduunka u sheegtaan ama mudaharaadi lahaydeena ama wax kale ku sheegi lahaydeena dadka shacabka loo baahan yahay inay mataqaanaa tusaan inay dowladooda tahay mara aada iyo aad baa umahadsan tahay cabdullaahi waxaan filayaa in barnaamijkeenii maanta liveka ahaa inaan kusoo gabagabeynayno heystan wadaniga ah waxaan dadka u sheegayaa marka in ay siduu cabdullaahiba sheegaba shucuurtooda iyo waxooda inay ku muujiyaan barnaamijkana barnaamij socon doono waaye waan isla joognaa waxaana filayaa in aan dad badanna aan keeni doono sidaa naga codsateen marka barnaamijkii maanta liveka sabtida intaasa kusoo gabagabeynanaa waxaan leeyahay cabdikariim maxamed cali aada iyo aad bay umahadsan yihiin hees inay noo soo haraan asalaamu calaykum شيء